dumarka iyo carruurta hala badbaadiyo xuduudahana ha loo furo dawlad walba waxa mas'uuliyad ka saaran badbaadinta ciyaalka iyo dumarka waxa sidaas dhahday Malala. I think every country has a role and responsibility right now. Countries need to open their borders to Afghan refugees, to the displaced people. la socotaan wax Afghanistan ka socda in Taliban ay la wareegto guud ahaan xukunka wadanka Afghanistan. Malala ayaa ka codsatay dawladaha xuduudda la ah wadanka Afghan inay u soo gulmadaan badbaadinta gabdhaha iyo ciyaalka. Haddaba waa maxay cabsida soo wajahaysa gabdhaha wadanka Afghanistan? Xukunka Taliban uma ogola dumarka inay wax bartaan, sidoo kale inay shaqo aadaan. Talibaniyiintu waxay ku qasbaan dumarka inay xaafadaha kaliya joogaan aysan waxba baran, shaqana aadin. Malala iyadana waxay ku caanbaxday oo lagu yaqaan oo ololeynta xuquuqda dumarka. ololeynta gabdhaha inay waxbarasho aadaan. Malala waxay soo bilowday yaraanteedii. Talibanna waxay uga digeen waxyaabaha ay wado Malala inay joojiso, laakiin maysan joojin inay u hadasho gabdhaha inay aadaan iskuulka. Iyadoo 16 jir ah oo iskuulka imaaday saarneedna baska iskuulka ayaa waxa baska soo galay nin dhalinyaro ah oo qori wato waxaana ku dhawaaqay waa tuma Malala. Gacanta ayay taagtay waa kana ayay tiri xabad ayuuna madax kaga dhuftay si dhimasho ah ayuuna uga tagay. Pakistani school bus like this one, men with beards and a gun, a Colt 45. One of them climbs on the bus and asks a question. Who is Malala? 16 years old, the youngest nominee. She was shot because she spoke up for the 31 million girls around the world who cannot get an education. On the left side of my head, I would have been doing like this. So I hide my face because there was gunpowder on my finger. waqtigaas kadib waxay heshay caafimaad iyo gargaar degdeg ah. waqtigaas kadibna waxaa la guddoonsiiyay Malala hadiyadda Nobel Prize. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of God, the most merciful, the most beneficent. Your Majesties, Your Royal Highnesses, distinguished members of the Norwegian Nobel Committee, waxayna noqotay qofka ugu da'da yar ee dunida guddoomay hadiyadaas. Malala hadda waxay cabsi ka muujinaysaa xukunka Taliban in gabdhaha ay cunaqabatayaan una diidaan inay waxbarasho aadaan, sidoo kale shaqana aadaan. sidoo kale wadanka Afghanistan shacabka kala bar waa ay qaxayaan waxayna ka qabaan cabsi xukunka Taliban. dadka ayaa waxay aad u soo buux dhaafiyeen airportka wadankaas waxayna ku dhegdhegayeen diyaaradaha ciidamada Mareykanka ee ka baxaya wadanka iyagoo u qabsanaya sida gaarigii. badan ayaana meeshaas ku dhintay oo diyaaradda markay kacday kadib ka soo dhacay. muuqaal ayaan soo dhigay YouTube-kayga aan kaga hadlay wadanka Afghanistan iyo waxyaabaha ka socda. aadan weli soo daawan muuqaalkaas soo fiirso si aad wax badan uga fahantid.